السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجامعة النهضة سوى استاهل لوف يعني استاهل لوف. ما أنتنا محنكين هيدا ما أنتنا وحليدين هيا ودعنا عجيبة ودعنا ليابله ودعنا قصة كورني سوالدا. فماتي سمر كلوفيريو دمركو ولود بول مسيران لكن هو مركو جهريسي والله أركيو جبر كنا واقعسا ninkayga diinta ku banaysay ninkayga diinta ku banaysay waa markii ugu horeysay oo la arko gabar ku dhawaaqaysa ninkayga diinta ku banaysay marka Soomaali Maxamed runta aan isku sheegno gabdhaha khaasatan runta aan isku sheegno waa xaqiiqa gabar waliba way maseertaa way gubataa way xanuunsataa markay ninkeeda ku aragto naag kaleeti laakiin mid baa jirta ogow ninkan diinta ayaa u banaysay afar kamana hor istaagi kartid adiga laakiin adiga waxaad leedahay laba option ayaad haysataa labada option inaad reerkaaga dhaqato oo ninkaaga aad haysato naagtu doonaba ha ku keeno iyo inaad iskaga tagto oo go'aan aad yeelato oo aad ka tagto dhaxda nolosha nima aad kuma noolaanay nolol kale ayaan aadaya walow kaad tagtaba ama kaado tagtaba laga yaabo duruuftu maalinta u saacido ama duruuf maalinta uu waqtiga u helo inuu naag labaad dhaqan karo uu guursanayo hadda ragga fiican waliba waa ragga fiican ka xun adoon isagoon adiga meel ku sameeynin buu naag kala guursanaya hadaba gabadha ayaa jirta maanta ku qaylinayso dhaxayso diinta sharciga iyo ku bani bal hada hadal badan xaan ma buuxshe bal asla aragna gabadha qaylada ka dhayeynayso iyo sida ay u qaylinayso iyo waxay leedahay naya ninkayga sharciga ku baneeyay sheeg naya ninkayga sharciga ku baneeyay sheeg ayay ku qaylinaysaa gabadhani oo maaragtay ninkeeda naagta uu guursaday sharciga u baneeyay ayay ka qaylinaysaa أنا بقول الدنيا واقع معي لكن waxaan ku qoslay diinteed ku banaysay diinteed ku shukaansatay ninkayga diinteed ku shukaansatay ya diinteed ninkay ku shukaansatay ee tir gabadhan horta waxa u muuqataa gabadhan dhulka is dhigtay waana la tumaya laakiin uma eka gabadhani gabadh maaragtay kaligeed ay dishay aan waxa u maleynayaa qiyaastayda inay gabadha dhulka loo dhigay loo dilay kadibna la yidhi dhagax ku garaac marka waayo markii si loo fiiriyo labada gabdhood midda hoose iyo midda sare midda hoose aba xoog badan marka waxaan u maleynayaa gabadha in loo lagday kadibna loo garaacay kadibna la yidhi dhagax ku garaac anagana kaamiradan ka duubaynaa marka gabdho horta ma fiicnayn inay gabdhaha dagaalka sidan loo galo gabadhana in sidan loo galo loo tumo loona dilo ma fiicnayn waxa kale oo fiicnayn inay gabdhuhu isla haysiiyaan nimankan ilaahay abuuray ayaa afro baneeyay haday xaraan ka ahaan lahayd ma aysan guursadeen laakiin waa wax allihii abuurayna abuuray awood naga sareysa ayuu ku imaanaya صح ما أقولين مرة بمو شركة حنونايا إن ننك أنا نقولسبي إيو نولشنا عن لو ذاك ننكله شركة نجيب بينا يوارون ومسيرنا دمر كل ود بوي مسير تشري إلا أي أصحاب دي مسير تشري وأنا لا كورسين تشري لكن ما شرتنا كل واقع شيء حتى كهر قبضن كهر دينتي كوبا نسي ninkayga
inaad shukaansato ya diinta muslimka u banaysay abay diinta muslimka u banaysay inay shukaansato hadduu calaf ilaahay isugu darana inay shukaansato laakiin tan waad ka reebtay waadna garaacday sax kuwa kala imaanaaye siad uga reebi gabadh walba ma dhagax baad ku garaacay daba labaad waxaa laga yaabaa gabadh karti badan inay timaado oo ninka kaa qaado oo iyadu ku garaacdo teeda labaad gabadhaha kale aan idin sheegaya gabadhay haddaad xoog lahayn ninaa qabo ha shukaansanin waayo sidanaa lagu garaacayaa ma fahamti marka waxaan idin leeyahay gabdhaha soomaaliyeed dhammaantiinaba waxaa fiican inaad ka taxadarto inaad maaragtay sidan qaabkan gabadha u dhaqmayso aada u dhaqantid ninkay wax idinka dhexeeyaan gabadha islaamiyad waxba idinkama dhexeeyaan waa ninka ayaa ninkaaga ah waxaad dhihi kartaa walaal naagaad shukaansataa anigay fasax sidoo kalena waad ku haysan kartaa ninkaaga laakiin xataa isaga ma dhihi kartid ninkaygiio naa kale ma shukaansan kartid ama naa kale ma guursan kartid isagana gacan uma qaadi kartid iyadana gacan uma qaadi kartid maxaa yeelay adiga iyo ninkan saddex ayaa isku keentay dan ayaad wada leedihiin reer ayaad rabtaan inaad wada dhaqataan awlaad inaad wada dhashaan nolol inaad wadaagtaan laakiin wax gacan qaad la yidhaahdo oo idinka dhexeeyay ma jirto haddii la isfahmi waayo arrullaahi waa sacan ilaahay iyadoo la necab yahay furitaanka oo meesha wax lagu furo nacdal kusoo degto haddana ilaahay muxuu baneeyey labadiis fahmi weyda inay ku kala dhaqaaqaan ayaa loo baneeyey ma aha labadiis fahmi weyda inay gaas isku shubaan iyo inay dab isku horiyaan iyo inay gabdhaha kale oo nimanka shukaansanayaan ay raadsadaan iyo inay maaragtay sharafta dee meel kaga dhacaan oo maaragtay shaksiyadaada adiga isbahdilaya markaad nin dartiisa naaga u caydhisato adaa isbahdilaya markaad iska dhigto maaragtay jeclaaw ninkaaga ma diidani naag walba ninkeeda inay jeclaato waa xaq waana waajib saaran maxaa yeelay ninka ay nolosha la wadaagaysay waa jeclaan kartaa waana masayri kartaa laakiin masayrku waa inuu limid leeyahay waayo aduu qof bilaadan oo saddex keentay baa tahay beri baad kala tegi kartaan tanaad la dagaalayso beri guursan karaa wuu kaa jeclaan karaa iyaduu jeclaan karaa adigu ku nici karaa waxba laysmara raaciyo marka walaalow nolosha haddaan wada dhaqanayno welcome haddaynaan wada dhaqanaynina inuu kala kaxe oo kaliya weyaan laakiin haddii aad tiraahdo diintee ku banaysay inaad shukaansato ninkayga taasi ma soconayso diinta u banaysay waa la wada ogyahay waana la wada ogyahay inay diinta u banaysay ragga islaamka inay wada guursadaan 2 naagood 3 4 waxaa laga yaabaa ninkaad adu maanta u boboodayso inuu naa kala keeno weliba iyagu kaa jecel yahay marka waxba ha israacraacinin baan ku dhihi lahaa walaal macaan ninkana maaragtay waa nin isagoo 20 jir aad baratay dad aabihi hooyo ay dhaleen ay soo barbaariyeen laga yaabo aabihii inuu naaga lahaa laga yaabo adiga aabaha inuu 2 xaas 3 xaas leeyahay markaas ninkaaga u diidaysaa waxaa laga yaabaa walaalka inuu 2 xaas leeyahay waxaa laga yaabaa ehelkaaga oo dhan abtiga adeerka walaalka dadkaaga inuu 2 xaas qabaan wiilasha adiga kula dhashay dadka ehelkii ragga ehelkaaga ah adiga ninkaaga kaliya laguma gudin maxaa loo guday inuu afartu ilaahay u baneeyo guursado haddii uu awoodo waa haduuna awoodo meesha waa laga saaraya laakiin haddii uu awoodo waa marka gabdho ha isla raacinina raggan beri bay idinka tegi karaan warqadaa laydin siin karaa tanaa laydinka raaci karaa marka dhabar adeeg samee hal mid baad yeeli kartaa inaad ninkaaga ku dhabar adeegto war waxaa doonto guurso waan kula joogayaa iyo inaad dhahdo war aniga kuma rabo maadaama naa kala guursatay farayga qaad warqadeedana sii taas haddaad samaysana ogow nin walba oo saas ku samayso nin walba guursata naag buu kaa daba keenaya marka adigana waxaad noqonaysaa qof aan sal lahayn degaynin weligiisi alihiis marka waxaa lagaa rabaa haddii aad nin haysato ninkaaga inaad ku dheganaado maaragtay u dhabar adeegto sidii uu naaga kale ku iloobi lahaana aad isku daydo inaad soo jiidato haddii aad awoodi weyda soo maaha awlaadaada iska dhaqo haddii aad awoodi weyda soo maaha iskaga tag laakiin dagaal iyo qaxar iyo naag baa nin dartii nin u dishay ma maxay gabdha sumcaddii gabdhahaad ceebeynaysaa walaalayaalow gabdho waxaa jira
ragga haddii isfahmi waayaan laba qodob isku qabtaan banaanka ka mara aan la sii hadday doonaan hadday xataa iyagu hantida leeyihiin uga taga jira gabdho waxaa jira aan la murmin ama la doodin ragga haddii ay ka heli waayaan si toos uga taga oo aan la doodin xataa hadday arkaan iyagoo naag shukaansanay laba go-aan ka gaadha inay la dhaqanto ninkeeda jecesha reerkooda haysato iyo inay iskaga tagto gabdho noocaa u dhaqmaa jirta marka gabdhaha noocaas ee sharafta leh ee labada go-aan haysta inay ka tagto iyo inay gurigeeda joogto adkaysato laakiin inaysan shaqsigan bili-aadanka iyo shaqsigu isagu wato toona waxba u geysan sharafta ha kaga ciyaarina sharafta laydinkaga ciyaariyay marka walaalayaalow diintay ku banaysa markaa xasuustaba maskaxda aribaa qoslaya marka ma fahamtid waxaan idin leeyahay haddaba waa laysu soo dhigtay iminka waxaa la leeyahay wiilashii nin walowba naag haddaad haysato naagtaada ku eka wiilalow gabdhihii waxay idin leeyihiin gabdhaha kale haddaad shukaasataan diintay idiin banaysay marka intaad nala dhihi lahaa diintay idiin banaysay gabdhaha la dhihi lahaa la layn lahaa fadlan waxaan idin leenahay xaasaskiina iska haysto xaasaska la dhaha shukaansanina haddaydan ka faala qaadi karin waa inaad iska ilaalisaa teeda labaad gabdha waxaan idin dhihi lahaa idinkana ka tigtoonaada niman xaasas leh inaydan ku degtegin wixii calafka ka wadaarsan calafku waa halkiisa laakiin haddii maaragtay wixii calafka ka wadaarsan aa isra raacisid ninkii oo naagle aad adiga iska dhigtid inuu adiga keligaa ku jecel yahay kan naagtaada kasoo go iyo naaga waxaa jira dhahayaan dhegeyso ani haddaa i jeceshahay naagtaadii hore iska fur oo naagtiisii hore soo furaya waaba naagtiisii hore awlaadu hayso jecaylu kusoo guursaday waad ugu soo gashay adiga haddaad ugu soo gashay sidaas waa inaad ku qaadataa marka waxaan idin dhihi lahaa gabadha horta kabadbadis baad wadiin mid odhanayso haddaad ani jeceshay naagtaadii hore furo iyo mid dhahayso naaheedha ninkayga diintee kuu banaysay inaad shukaansato ayadooda noqoteen marka waxaan idin dhihi lahaa gabdhood caga dhigta kowdhaha caga hoostooda ka socda raggan idinkale idiinma gudin idinkana iskama lihidin afar buu ilaaha u baneeyay wayna guursan karaan wayna iska dhaafi karaan marka idinka waxaan idin dhihi lahaa digtoonaada gabdho haddaydan xoog lahayna nin naag laha shukaansanin haddaad wax iska celin karin nin naag laha shukaansanin marka asxaabay intaas kusoo gabagabinaya waxaan idin dhihi lahaa like subscribe share waxaana loo sameeyo insha allah kulanti dambe oo xiisa leh ayaan idin rajeynayaa bye bye